السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhegeystayaal daawadayaal markaleeto waxaan idin leeyahay kulanti wacan oo wanaagsan markana waxaan idin sidaa sheeko aad iyo aad u cajiib badan oo markaasi ku dhacday gabadhii hooyo la'aanta ahayd haddaba waa gabadhii hooyo la'aanta ahayd aan gudagalno barnaamijka iyo la socosho wanaagsan waxaa jirtay gabadh ay hooyadeedu geeriyootay aabbaheedu ayaa guursaday islaan kaleeto islaantaasi waxa ay markaasi la joogtay muddo waxayna islaantii ay dhashay gabadh kaleeto gabadhii islaantii ay dhashay iyo gabadhii horeyto ayaa markaasi waxa ay noqdeen gabdho xoogo waaweyn oo isfahma ahna gabdho walaalo oo aad isku jecel weliba walaalo aad iyo aad isku kalsoon ay ahaayeen labada gabdhood eedadii ayaa markaasi gabadha tani ay eedada u tahay ka maseertay gabadheeda markaasi habka ay markaa ugu faraxsan tahay gabadha tani markaasi ay la joogto oo markaa walaasheeda ah eedadii ayaa markaasi masayr aad iyo aad u xun ugu qaaday gabadhii eedadeedii ahayd aad ayayna u dhibsatay maadaama gabadhii yareyd ee ay dhashay ay markaasi aad iyo aad u jeclaatay gabadhii kale ee walaasheeda ahayd haddaba gabadha tan markaasi eedada tan waxa ay samaysay waxa ay la heshiisay waraabe oo markaasi ay u sheegtay in gabadha tan ay eedada u tahay inay cunto kadibna gabadhii ay dhashana ay badbaadiso waraabihii waxayna u sheegtay in uu markaasi u samayn doonto calaamad uu ku goran karo gabadh uu cunayo maadaama labada gabdhood ay yihiin laba gabdhood oo walaalo ah aadna isku jecel meel walbana isku raaca aadna isku kalsoon ma aysan kala hari jirin waraabihii ayay u sheegtay markaasi calaamad uu ku aqoonsan karo waxayna u sheegtay in jijimo ay u gelin doonto labada gabdhood gabadha gacanta bidixda jijinta ugu jirta uu dhaafi doono in u sheegtay in gabadhaasi ay tahay gabadheeda balse gabadha gacanta midig ay jijinta ugu jirtana markaas uu cuni doono ahna gabadha markaasi ay eedada u tahay waraabihii iyo markaa eedadii ayaa kala tagay guriga ayay ku soo laabatay gabdhii ayay u lalabistay kadib waxa ay samaysay sidii ay rabtay oo jijimihii ayay markaasi gabadhii markaasi ay dhashay bidix ugu xirtay gabadhii kale eedada ay waheedna waxay ugu xirtay gacanta midigta ah waxayna ku dhahday waddada tani ku socda halkani ka baxa oo markaasi waddo kaleetaha marin gabdhihii in ay dirto ayna u dirtay biyo inay u soo dhaamiyaan ama biyo in ay u keenaan iyadoona ku dhahday waddada tani ka baxa meel kaleetana ha marina toosna u socdaa waraabihii ayaa ugu gambanaa geed ka mid ah geedihii jiqda gabdhihiina war maysan ka haynin markii ay socdeen meel dhaxana ay marayaan ayaa gabadhii markaasi eedada ay dhashay gacanteedii fiirisay waxaa ku xiran jijin oo markaa qaybta ama gacanta midigta ugu xiran halka walaasheedna ay ugu xiran tahay gacanta bidix gabadhii ayaa markaasi fikirtay waxayna ku tiri maxay hooyadee sidatan u samaysay oo gacanta midig aniga igu xirtay jijinta adiguna gacanta bidix ay kuugu xirtay gabadhii ayay markaasi hooyadee waxay ka wado ma fahmin ayay dhahday balse waxay dhahday anigu gacanta bidix ayaan jeclahay ee ii bedel jijintani tan adigu midig ku xiro tan anna isii oo aan gacanta bidixda aan ku xirtee walaashii weyneed iyaduna maadaama ay walaasheeda yar ay jeceshahay hadal maysan ku soo celinin wayna u bedashay jijintii kaleeta ayay bidixda ku xiratay halka gabadhii yareydna iyada ay ku xiratay gacanta jijinta midigta ama gacanta midigta ay ku xiratay jijintii haddii ayba sii socdeen wax yar kadib waxaa si lama filaan ah ku soo baxay kuna soo booday gabadhii ay dhashay eedada waraabihii halkaasi ayuuna gabadhii ku watay ayuuna ku cunay gabadhii kaleeto ay gabadha eedaday u ahayd halkaasi ayay ku niyad jabtay oo murugo iyo ooyihiin ay ku qabsatay ilaa iyo muddo ay meesha ay fadhisay waxayna go'aansatay in aysan bixin oo halkaas ay fadhiso
oo walaasheedii meeshii waraabaha uu ku cuno ahaydna ilaa uu waraabaha kaga soo laabto iyadana uu cuno. Halkaasi fadhisaa oo ku murugaysan ooyeysana lana yaaban wixii ku dhacay walaasheeda ayaa waxaa meeshaan soo maray dad safarley ah oo markaa la yaabay gabadha wadada cidlaada ay fadhiso. wayna ku soo dhawaadeen waxayna weydiiyeen waxa ku dhacay oo halkan fadhiisiyay ayna markaasi la oynayso. gabadhii ayaa u sheegtay qisadii ku dhacday markaa walaasheediina oo waraabo cunay in aysan rabin in halkan ay ka tagto oo ay markaa waraabaha u soo laabto iyadana uu cuno sida ay walaasheeda uu cunay oo kaleeto. dadkii safarleyda ahaayeen ayaa la yaabay gabadha go'aankeeda waxayna markaasi ku dhaheen maxaad cidda ugu sheegi weyday in walaashaadii la cunay oo aadna markaasaa u samayn weyday. gabadhii ayaa markaasi ka diiday oo markaasi aanan waxay dhahday maya anigu meelna uma socdo ilaa aan markaasi waraabihi uu markaa uu soo laabto anna uu cuno sida uu walaasheeda uu cunay oo ayaa arkay in gabadha tani go'aankeedu uu adag yahay ayna markaasi aanan markaasi wax laga dhaadhicin karin balse waa ay soo wadeen iyagoo qasbaya waxayna si toosa markaasi weydiiyeen gurigooda meesha uu ku yaalo. wayna markii dambe u sheegtay iyagoo wada ayay markaasi keeneen guriga. markii la keenay guriga ayaa waxaa aragtay eedadii gabadha tan ay eedada u ahayd keliya in ay soo laabatay balse gabadhii ay dhashay aanan la socon. eedadii ayaa markaasi aad u naxday oo markaasi naxdin darteeda afka u kala furi weyday. aabihii ayaa markaasi joogay halkaa oo markaa weydiiyey gabadha waxa ku dhacay walaasheeda ayna markaasi la ooynayso. waxayna u sheegtay qisadii ku dhacday iyo markaasi sidii waxay u dhaceen. eedadii ayaa markaasi aad iyadoo la yaaban iyaduna ooyin jabsatay waxaa weydiiyey odaygeedii oo markaa wuxuu ku yidhi maxaa dhacay oo markaasi aad samayday oo aad la oonaysaa. waxaa markaa dambo iyadoo hadal aan laga helaynin markii dambe ka soo fakatay jawaabtii saxda ahayd maadaama aysan markaasi waxba aysan qarin karin gabadheediina ay ka geeriyootay ama ay dhimatay ama waraabihii u cunay sidii waxay u rabtay ayay u sheegtay ninkeedii aad buu u carooday isaguna ilaa iyo markaasi odayaasha xaafadda iskugu soo baxeen. markaasna waxaa go'aan lagu gaaray in islaanta tani xaasidnimadeeda halka ay ka gaartay aysan joogi karin magaalada lagana bursado ama laga racdeeyo ama laga saaro magaalada dibna aysan ugu soo laaban ayay go'aan ku gaareen. sidii tii ayaana la sameeyey. aabihii iyo gabadhiisii ayaa isku soo hareen. gabadhii aabaheed ayaa isla soo hareen. eedadii waa la buriyey ama way baxday ama waxaa laga saaray magaalada. gabadhii ay dhashana waa ay weysay. qisadatii markaasi halkaas ayay ku dhammaatay. qisadatan iyadoo aad u faahfaahsan waxaad ka heli kartaan buugga ingiliishka ee manhajka dowladda fasalka form 4ka qaybaha dambe ama jabtarada dambe. waadna ku mahadsantihiin la socodkiina tan iyo kulanti dambo sida iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.